dowladda Mareykanka iyo ururka Taliban waxay qarka u saaran yihiin inay kala saxeexdaan heshiis taariikhi ah oo laga yaabo inuu horseedo in Mareykanku waddankaasi ciidamadiisa kala baxo iyo inay wada hadlaan markii ugu horeysay dowladda Afghanistan iyo mucaaradka Taliban. waxaa xilligan lagu jiraa heshiis xabad joojin ah oo loogu gogol xaarayo inay dhinacyadu is-aaminaan isla markaana heshiis kala saxeexdaan. wadahadallada u dhaxeeyay Mareykanka iyo Taliban ayaa socday sannado waxayna soo mareen marxalado kala duwan oo adag iyadoo dhowr jeer lagu kala kacay. haddaba heerka ay gaareen wadahadallada Taliban iyo Mareykanka ayaa waxa uu soo nooleeyay dalabaadkii ahaa inay sidoo kale wada hadlaan dowladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab ma doonayaan inay wada hadal la galaan dowladda Soomaaliya. sideedaba ururkaasi muxuu ka aaminsan yahay wada hadallada mase la joogaa xilligii lala hadli lahaa ururka Al-Shabaab. dalabaadyada ah in lala hadlo ururka Al-Shabaab waxay ka imanayeen khubaro dhinaca amniga iyo siyaasadda Soomaaliya ah. waxay kaloo ka imanayeen qaar ka mid ah maamuladii kala duwanaa ee soo maray Soomaaliya kuwaasoo mabda'iyan ka sinaa inaysan diidanayn in lala hadlo ururka Al-Shabaab. xaqiiqa ahaanna khubarada Soomaalida qaarkood waxay ku baaqayeen wadahadal dhex mara dowladda iyo ururka Al-Shabaab xataa ka hor inta aysan furmin wadahadallada Taliban iyo Mareykanka. khubaradaasi waxaa ka mid ahaa Professor Afyara Cilmi oo daraasaadka amniga ka dhiga jaamacadda Qatar University. Professor Afyara waxaan weydiiyey inuu weli aaminsan yahay inay wada hadli karaan Al-Shabaab iyo dowladda Soomaaliya. horta waxna waa waqtiga waxna waa mabda'a guud oo ah in nimanka wada hadal lala galo oo lala doodo oo wax meel lala dhigo. mabda' ahaan anigu kulley waxaan ka mid ahay dadka qaba inay lama huraan noqonayso waayo option kale ama wadada kale ee keliya furan waa in laga adkaado. mabda'aan ka soo qaadanaa mabda'iyan in lala hadlo waad aaminsan tahay. waxaad bal noo sharaxdaa sida iyo qaabka ay ku suuro geli karto iyo meesha wax laga bilaabayo. inagu markii 2012 aan qornay articlekii kolley aan isleeyahay waa kuwii ugu horreeyey oo waxaan laga qora arrinkan asaga ah. waxaan fiirinay waxa ay dalbanayaan oo ay rabaan. marka waxa ay dalbanayaan waxay ahaayeen 2 qodob: shareecada iyo ciidamada shisheeyaha inay baxaan. shareecada in la dabaqo iyo ciidamada shisheeyaha inay ka baxaan dalka. shareecada markaas waxoogaa ka hor ayaa baarlamaankii marka dalka joogay wuxuu goostay inuu qaato oo wuxuu yidhi shareecada waan qaadanay. dabcan dastuurkii dalka iyo waxna waa lagu integraeyay oo qodobo muhiim ah ku jiray. arrinta kale oo mabda'a ah oo ay iyagu markaa ku dheganaayeen waxay ahayd inay ciidamada shisheeyaha dalka ka baxaan. arrintaasna waxay ahayd arrin haddii go-aan la gaaro oo wax laysla garto farsamo ahaan laysla fulin karo oo tii hadda ka horreysay oo Etoobiyaanku inay xamar ka baxaan markii laysla gaarayo muqaawamada qayb ka mid ah arrinta ay kusoo gashayba dowladda ahayd waa tii laysla gartay markii heshiiska la gaaray inay Etoobiyaankii baxeen. waxaa jira khubaro badan oo aaminsan in wadahadalku uu qayb keliya ka noqon karo qaabab kala duwan oo loo waajihi karo ururka Al-Shabaab kuwaas oo ay ka mid yihiin in marka hore awoodooda military la wiiqo si ay wadahadallada u ogolaadaan, in laga wiiqo dhinaca dhaqaalaha iyo dakhliga soo gala oo la sheegay inuu sii kordhayo, iyo sidoo kale in lagala dagaalamo dhinaca fikirka iyo ideolojiyada. haddaba dagaalka dowladda Soomaaliya iyo ciidamada midowda Afrika iyo kuwa kale ee caalamkuba ay kula jiraan Al-Shabaab ma lagu xallin karaa wada hadal? Al-Shabaab waxay hogaamiyaha Taliban Mawlawi Habibatullah Akunzada u aqoonsan yihiin inuu yahay amiirka mu'miniinta. sidoo kale waxay Taliban muddo dheer martigelinaysay ururka Al-Qaacida oo Al-Shabaabna ay xubin ka tahay. haddaba ma laga yaabaa in wada hadal iyo heshiis dhex mara Taliban iyo Mareykanka uu ka dhigan yahay in Al-Qaacida iyo Al-Shabaabna ay aqbalayaan? khubarada aqoonta u leh Al-Shabaab iyo xiriirka Al-Qaacida waxay aaminsan yihiin in wada hadal lala galo Al-Shabaab uusan sahlanayn, ururku inuu ogolaadana ay adag tahay. dadka sidaasi ku doodaya waxaa ka mid ah Sheekh Ibraahim Aadan Nadaara oo hore uga tirsanaa saraakiisha dhinaca waxbarashada ee ururka Al-Shabaab ee gobolada Baa iyo Bokool. waxa uu leeyahay Al-Shabaab way ka duwan tahay ururka Taliban marka la eego dhinaca caqiidada iyo qadiyadda caalamiga ah oo uu ku doodayo in Al-Shabaab ay aad uga fog tahay. waxaa la dhihi karaa asbaabaha keeni karaa in qofku wada hadal ama uu dalbado ama haddii laga dalbo uu aqbalo keeni karo waxaa ka mid ah
in dhaqaalihiisu hoos u dhaco, in awoodiisa ciidan ay naaqus tahay, oo uu isleeyahay haddaad dagaalka sii wado jiritaankaagii wujuudkaadii baa baaba-aya. si marka jiritaankaagii wujuudkaaga uu usugnaado ama ila daaqadii awood aad kasoo ceshanayso, wada hadal fur way dhici kartaa, wayna qofka ku kalifto. waxaa kaloo ku kalifi karaa markuu is yiraahdo qorigii caaradii iyo dagaalkii aada waday, hadafkii natiijadii aad rabtay kuma gaari kartide, bal wada hadalkiina ku day iyo in miiska la isugu yimaado. saddexda arrimood aan sheegnayba hadda markii lasi qodka dheer loo fiirsho kama muuqato hadda culeys hadda saaran oo gaar ah oo kii horeba da'wal soo jiray aan ahayn ma jiro, oo sidii unbay dagaaladeena u qaadaan, meelihii maamulaan ay u joogaan. laga yaababa haddaba dadka qaarkood inay saadaalinayaan inay dhaqaalihii awal ay heli jireen ka badan hadda inay helaan, oo meelo fara badan kaleeto oo canshuur ay ka qaadaan oo gacantooda ay gaarto. marka waxaan isdhihi karaa maya mabda'a guud oo dadkay ka mid yihiin, maya oo hadda dhankooda baahi iyo culeys ku kalifaya ma muuqdo. qodob kale oo ay taalibaanku kaga duwan yihiin al-shabaab ayaa ah in bishii juun 2018 ay dowladda Afghanistan la gaadheen heshiis xabad joojin ah intii lagu jiray dabaaldegyadii ciidulfitriga, taasi oo dhalisay yididiilo ah in qadiyado kala duwanna laga wada hadli karo. ururka al-shabaab weligiis ma sheegin inuu ogol yahay xabad joojin inuu galo xataa xilliyada ciidda. hase yeeshee ururka taalibaan laftoodu ilaa haatan ma aysan hor fadhiisanin dowladda Afghanistan, waxayna ku tilmaamaan dowladda Afghanistan inay tahay mid dabadhilifa, halka ururka al-shabaab ay gaalaysiiyaan dowladda iyo dadka u shaqeeyaba. Sheekh Ibraahim Nadara mar kale, masalada horta masalo doodeedu taagan tahay weeye. ayaga markii ka system ahaan iyo nidaam ahaan la yidhaahdo beri hore waan ogaa doodaa inay taagnayd. waxaa keena in la ishaareeyo ama lasoo kiciyana berigaas waxay ahayd tusaale ururada ay maanta laleeyihiin gacansaarka laleeyihiin ay kamid tahay Taalibaan oo kaleeto, wada hadalay galaan ama dowladda Afghanistan hala galaano ama dowladaha kaleeto ee shisheeye hala galaano. waxaa kaloo iyadana jirtay ururkan la yidhaahdo Jabhat al-Nusra la dhihi jiray oo garabka al-Qaacida ee Suuriya ka dagaalama ahaa. ayaga naftirkoodii dowlado badan oo shabaabku ay murtadiin u aqoonsanaayeen bay gacansaar la lahaayeen, ama ururo gacansaar la ayaguna taxaaluf iyo isbahaysi la ahaayeen. marka haddii duruufta iyo dantu ay kalifto waa baab kaleeto, laakiin markii ayaga ka Soomaali ahaan oo shabaab oo Soomaali ka dagaalama ay tahay, way ka duwan yihiin ururada kaleeto ama Afghanistan kuwa ka dagaalama ama Sham kuwa ka dagaalama, way ka duwan yihiin xagga jaanibkaasi. ayagu systemkooda kuma ogeyn, oo intaan anigu ogaalkeyga on ka warqabay in dowladda Soomaaliya lala fadhiisto oo wadahadal lala galo, ha toobad keenaan waxaan ahayna ugu jiray maana ogeyn. haddayna hadda gadaasho wax iska bedelo. Sheekh Bashiir Axmed Salaad waa guddoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed. waxa uu ka mid yahay culimadii ugu horeysay Soomaaliya ee naqdisa fikirka al-shabaab. hay'adda culimada ee uu hogaamiyaa hadda ka hor waxay isku dayday inay dhexdhexaadiso al-shabaab iyo dowladda Soomaaliya. waxa uu aaminsan yahay inay jiraan waxyaabo kalifay inay wada hadlaan Taalibaanka iyo Maraykanku. runtii waa su-aal muhiim oo mawduuca la xiriirta. waxay u baahan tahay in xog la raadiyo oo daraasad la sameeyo oo dadka maaragtay u dhow daloola ayaa ogaan kana aan leeyahay. waxaa jiri kara waxa isku khasbay labadoodaba. haddii daraf uu arko in dagaalku uu dan u yahay iska sii wadi lahaa. marka waxay ila tahay labadii qolo inay isku khasban yihiin. marka jawigaas isku khasbay waxa uu yahay noocu uu yahay daraasad looga baahan tahay kaan uga faa'iidaysano oo anaga tajribadeena iyo maarata xaaladana haysata laga faa'iideeyin. runtii maarata aada iyo aada iila muuqata si loo abuuro jawi noocaas oo kalea. hadda masalan labada qolo haddii midkeed uu guul joogi lahaa ama maaragtay umuuqan lahayd in waxa uu rabo uu ku gaari karo dagaalka waa sii wadi lahaa aan filayaa. laakiin duriko waxa abuurma iga tahay maaragtay aragtida bedelay mid kastana ku khasban inuu maxaanku raha kansaal la fadhiisto. duriko waxay ahaan karaan Taalibaan sidaan kuu sheegay oo maarata xarako maaragtay hadaf kooban leh oo warkooda kooban yahay, yani ahdaafteeda caddahay, meeshay u socdaan, cidii la dagaalamay ay kooban tahay. iyo Maraykan laftiisa laga yaabo in dagaalkan ay ku daba dheeraaday oo uu ka darayo meesha inay wado kale ku jiraan baa dhici karta, oo meesha laftiisa lagu rafaadinhayo ama lagu dhibahayo. marka uu rabo inuu sida dega maarata isagoo maarabad qaba oo uga siisto siisa meesha maaragtay ugu simbirraxay sidii itixaadka feetigii hore ay maaragtay ugu simbirraxday oo meesha lagu dhibay ay ahaan karta. sida marka say noqotoba dee duruufta la daraaseeyo isku khasabtay labada caday oo labadan daraf oo in muddo isdagaal hayay isku khasabtay in isku yimaadaan
duruuftaas inta daraaseeyo oo dadka maarata aqoon-yahanka laga faa'iidaysto ayagoo kale haddii la heli karo dalkeena runtii lagu abuuro aad bay maarata ku fiicnaan lahayd in iskuladan dheeraatay xal in la helaan dhici karta insha allahu tacaala. waaye marka ururada iyo meelaha colaaduhu ka jiraan, ururada ka jiraya dhinacyada isku haya, waad aragtay dhinac walba dalabaad iyo waxyaaba uu sheeganayo ayaa jirta. haddii la yidhahda maanta al-shabaab ha lagala hadlo, maxaan ku yidhahdaa waddanka in la xasiliyo, colaada la joojiyo, xabad joojin la gaadho, maamulka ay ka qayb qaataan, saamigooda ay qaataan, dastuurka iyo sharciga waddanka laga wada hadlo, bixitaanka ciidamada amisom laga hadlo, ma ogolaanayaan bay kula tahay? maxay ogol yihiin? horta wallahi intaan ka aqaano meesheeya anigu maaragtay waxa weye nimanka horta waxay aaminsan yihiin ama mushkilooyinka haystaa dhowr mushkilo weeye. horta mid waxa weeyaan mushkilo xagga ururku sida ay sheegtay urur caalami ah weeye oo qaacida ayay maaragtay qayb ka yihiin siday sheegayeen. hadda qaacidina urur caalami ah weeye oo mushkilo caalami ah inuu xaliyuu rabaa oo mushkilada muslimiinta haysato o dhan isagu maaragtay mas-uul ka yahay ama xalinteeda isagaba shadka u garaacday ama xalinkeeda qaaday. marka ururkaas caalamiga qofka maaragtay kamid yihi qofkaas mushkilo caalami ah buu ka hadlahayaayo. marka qofka dee mushkilo maxalli ah ama wadan gaar ah laba ka hadlahayo waxyaalahaas ay sheegaan oo dalka maaragta la xiriira. yani waxay la tahay waa nooc iska maaragtay mamarsiyo kadhigid maahane nimankan waa maaragta ururka qaacida waa urur caalami ah wuxuuna u socdaa mushkilo caalami ah inuu xaliyo oo Maraykan iyo UN iyo halkaas ayuu asagu maaragtay ayuu la mistoo yahay. marka halkaas u socdaan qaraarkooda iyo go-aankooda laftiisa in ay gacanta ku hayaan laftiisa su-aal baa ka imaan karta maadaama nimankan ay urur ka leeyihiin ururkiina iyo dibadda laga xukumo saddex xukumona ay maaragtay diriifo gaar ay ku jiraan oo maaragtay ay meelo kala joogaan. go-aanka wadahadalka laftiisa amuusan kuwaan hadda annaga noo moodo ama noo dhow oo soomaalida ah gacanta inuu ku jirin baa dhici kartaba maaragtay waana sida muuqata marka tandiimka soo shaqeeyo ninka maaragta mas-uulka ah oo tandiimka xukuma oo qaaxido xukuma ayaa go-aanka iskale. intaasna waa nin duruufta maaragtay duruufa haysta laga yaabaa kale waa nin barnaamij caalami ah ku jira oo iska digdigahaya maaragtay dowladaha caalamiga oo mushkilada caalamiga ka hadla marka mushkilada Soomaaliyeed maba aha dhaqsaha ah. taariikhda ururka al-shabaab mar kaliya ayay ku soo dhowaadeen inay wada hadal ka galaan colaadda Soomaaliya, taasi oo ahayd horaantii sanadkii 2009 kadib markii la sameeyey hay-adda culimmada Soomaaliyeed oo isku dayday inay dhexdhexaadiso dowladda iyo ururka al-shabaab. culimmada xilligaasi waxaa dhiiri geliyey in dowladdii cusbayd ee lagu soo dhisay dalka Jabuuti uu hogaaminayey Sheekh Shariif Sheekh Axmed, hogaamiyihii maxaakimta islaamiga ahaa oo sidoo kalena ahaa hogaamiyihii siyaasadeed ee muqaawamadii la dagaalamaysay ciidamada Itoobiya iyo dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee madaxweyne Cabdilaahi Yuusuf Axmed. muqaawamada xilligaasi waxay gacansaar lahaayeen oo ay dagaalka ku wada jireen ururka al-shabaab. dowladda Sheekh Shariifna waxay ku soo dhisantay wadahadal dhex maray dowladdii ku-meel gaarka ahayd iyo ururkii dib u xoreynta Soomaaliya ee uu hogaaminayay Sheekh Shariif Sheekh Axmed, iyadoo labadii natiijo ee ka dhalatay wadahadalkaasina ay ahaayeen in Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya iyo fulinta dalabkii ugu weynaa ee muqaawamada oo ahaa in ciidamada Itoobiya ay ka baxaan Soomaaliya, taasi oo dhacday ka hor intii uusan madaxweynaha noqonin Sheekh Shariif Sheekh Axmed. hay-adda culimmadu waxay u aragtay xilligaasi inay jirtay fursad weyn oo laysku soo dhoweyn karo dowladda iyo ururka al-shabaab maadaama labaduba ay gaareen waxyaabo ka mid ah dalabaadkoodii ama qadiyadihii ay u dagaalamayeen. balse dhinaca kale waxaa iyaguna taagnaa caqabado, kuwaasi oo ay ugu horreysay in waddanka ay joogeen ciidamada Uganda oo xilligaasi ilaalinayay dowladda federaalka ku-meel gaarka ah. inkastoo ciidamadaasi Uganda aysan ilaa waqtigaasi si toosa uga qayb gelin dagaalkii ka dhanka ahaa ururka al-shabaab. qodobka kale ee caqabadda loo arkayeyna waxa uu ahaa ururka al-shabaab oo isku arkayay inuu xoog ku muquunin doono dowladda Soomaaliya iyo ciidamada ilaalinaya labadaba. sidaasi oo ay tahay haddana hay-adda culimmada Soomaaliyeed waxay guddi u direen ururka al-shabaab. guddigaasi waxay hor fariisteen hogaamiyaashii ururka al-shabaab oo ay ugu horreeyaan amiirkii ururkaasi Axmed Cabdi Godane iyo ku-xigeenkiisii Mahad Karatay. ergada ay culimmadu u dirtay ma ahayn rag ay cabsi gelinayeen hogaamiyaasha ururka al-shabaab. ergadaasi waxaa ka mid ahaa culimo si weyn looga yaqaano Soomaaliya iyo saaxada salafiyada. ergadaasi waxaa ka mid ahaa hogaamiyihii ururkii baaba'ay ee al-Itixaad al-Islaam Sheekh Cali Warsame.
galka baarista ayuu uga warramay wixii ay ula tegeen ururka al-shabaab. laba qodob baanu ka wada hadlaynay. labada qodobna waxay ahaadeen qodob caqiidu ahaa warnamayow waxaa laydin sheegayaa takfiir waxaa dadka idinka saaray waxaa laleeyahay ama dee laydinku arkaya waa wax takfiir la yidhaahdo. marka maxaa waxaa laydinku haystaa takfiir iyo dad maaragtay iyo dagaal dad muslimiin aada la dagaalamaysa baad la dagaalantahay. marka calaa kulli xaal qaybka caqiidaday ahayd waana ka wada hadlayna xagga caqiidada. qaybka kalena wuxuu ahaa qaab siyaasiya buu ahaa. ka caqiidada de waxaan ku saabsanay war dadkan ad gaalaysiinaysaan ka daaya maxaa ku gaalaysiinaysaan waxba kama aanaan gaadhin oo waxoodii bay iskaga adkaysteen waxay dadka qayba ay gaalaysiinayan ma wada gaalaysiinayaan iyagu dadka oo dhan laakiin dad oo qaybo ka badan bulshada ayay de gaalaysiinayeen. marka calaa kulli xaal qaybka caqiidada waxalaale wax iska bedelay markii halkoodii way maxoodii ay ku adkaysanayeen. marka qaybtii kale iyadu siyaasadda ahayd waxaan u soo jeedinay in maaragtay dagaalka aada la dagaalamaysaan dowladda masuli hadeertimi ajeedinaan weli ogaan waxay qabanayso iyo waxay qaban doontaba ma heshiisa la geli kartaan oo maydin dhexgalaa oo wax heshiisa maydinka suula gelaya baana ku niri. marka waxay yidhaahdeen wax heshiisa ilaa uu saaro qolada ajaanibka waaleyskii baa u badnaa markaa joogay inta la samayn bay ahaayeen kuwan badan ee noocyadan badan ee gaalada ilaa uu saaro maxaan idhahdaaye nimanka waaleyska ka saaro wadahadal la yeelan mayno hadal yidhaahdo. madana waxaan ku yiri bal horta aan haddamayso saarida haddamayso ila haddii la saaro iyadoo wax hadali jirin de waxa weeyaan de waa haddii la yidhaahdo iyadoo aan wax hadali jirin hala saaro welina ninkii aanu hala iska taagin de waxa weeyaan ku qabsada weeyaan inta ka horeysa wax wada gaari karna oo maaragtay masalan annagu waxaanu kari karnaa inaan madaxno haddii heshiis la gaaro oo aad taxadaan in maaragtay masalan inaan maaragtay waxay in wadahadal aan samaynayno oo wax heshiisa aan wada geli karno waxa weeyaan marka waxaan odhanaynaa hadday nimanka heshiiskanaan saara annagaa odhanayna ha laga saara nimanka ogaaleyska iyo gaalada. calaa kulli xaal iyana waxay ku adkaysteen horta ha saaro markaas aan la hadli doonaa. marka qoladii kale inbay waxay yidhaahdeen haddii hadday nimankaasu hadday doonayaan heshiis yaani shardi looga dhigin horta hala saaro inaan wax ku heshiino. haddii aan wax ku heshiino markaa baynu ka hadli karnaa saarida nimankaa la saarayo. laakiin hadday leeyihiin horta hala saaro maytaa ma aqbalayno ka wada hadli mayno arrinta markay hadda haynkaa tahay. arrintii markay qoladaas intii siyaasadda ahayd qaybtii siyaasadda ahayd ay halkaa iska taageen. wixii kale aanu ku haysanay dee takfiirka ahaana iyana aanay waxba iska bedelin iyo halkaasaan isku macaasalaamaynay. halkaa yaanu nimanka laba maalmood baan isugu soo noqonay oo xaggooda qaybka iyagu joogaan baanu tagnay. marka halkaas baa isku ay dhamaysay nimankii aanu isku macaasalaamayn. waaya xaggooda markaad tagteen yaad la fadhiisateen ragga idinsoo hor fadhiistay ee sidan idin dhahayaad la xaajooteen waa kuwe? horta may badnayn laakiin dee kii markaa madaxda u ahaa waa ninkii godane weeyaan. ninkii markaa madaxda ahaa ay jireen weeyaan buu ahaa iyo naad bay yidhahdo mahad karatay adagu dhaydo aan badnayn bay ahayn nimanka noo yimi. markaad la fadhideen axmed cabdi godane iyo mahad karataay labada qodobeed kala hadasheen ee midna caqiidada yahay midna siyaasadda yahay midkeebay aada ugu adkaayeen mise labaduba isku mid bay ahayn? horta ninka iska hadlaya waa ninka ina godane buu ahaa. ninka ina godane buu ahaaba isagaaba jaanis lana sii waayey maantii o dhan khudbadaynayay isagaaba jaanis loo diiday. marka markuba dee jaanis lana sii waayay ayaa waxaan ugu mahmaahay nin odaga oo adeeray bu toosan baa qola damada inay jir kala baxdo. waxay yidhahdeen gaas khayraa la odhan jiray waxay yidhahdeen gaas khayrow arrintii caynkaas iyo caynkaasa ka waran haba arrintu aamusay buu yidhi waar adeero cidiga yar aada wareysatay ma weydi cidiga yar oo aada wareysatay ma weydi waxaan ku leena godanow waar cid naga yar oo aad maanta o dhan ukhudbaday oo jaradii raggan waa mashaaqidaadi weeye raggan waa mashaaqidaadi waad garanaysaa
cid naga yaryar oo aada u khudbadaysa miyaad weydi marka saansaskiis kuma xidhin meesha kuguma xidhin marka isninka hadlayay kooxaa nagaasu ahaa kuwa kale wax badan kuma lahayn wax badan kuma ay lahayn. marka su-aasha aan ku weydiinaya waxa weeye sidoodaba ma lala xaajoon karaa niman wada xaajood lala furi karo oo qadiyadda waddanka wax ka geli kara oo dawladda dhinac ka raaci kara qaybtooda qaadan kara ciidamadooda ciidanka ku biirinaya dastuurka iyo sharciga waddanka laga wada hadli karo niman noocaasa ma yihiin mise way ka duwan yihiin? maya fili maayo waxay u arkayaan de waxa maamulka ku jira inay gaala yihiin bay arkaan markaasaasi fili maayo inay ka suurageli fili maayo inay ka suurageli karto haddii la yidhahdo dawladda dalkaata nigaal ku arkaya maxaa qaybsan kartaan baddi maxaa isku darsan kartaa. inkastoo dhexdhexaadinta hay-adda culimmadu aysan guulaysan haddana waxay isku dayeen inay wax dhaqaajiyaan si ay kalsooni u abuuraan. culimmadu waxay dalbadeen in baarlamaanka Soomaaliya uu xaqiijiyo in waddanka lagu maamulayo shareecada muddo 120 maalmood gudahood ah iyo in isla muddadaas ay ciidamada AMISOM ka baxaan waddanka. baarlamaanka Soomaaliya waxa uu aqbalay qodobka hore waxaana uu aqlabiyad ku meel mariyay in shareecadu ay tahay aasaaska shuruucda waddanka. waxayse baarlamaanka iyo hogaamiyaasha dawladduba diideen in ciidamada AMISOM laga saaro waddanka iyadoo aan la gaarin xal siyaasadeed. guddoomiyaha hay-adda culimmada Sheekh Bashiir Axmed Salaad waxa uu aaminsan yahay in ururka Al-Shabaab aanu ogolayn wax macaamil ah. horta marka hore waxaa loo baahan yahay inaan fahmiyo horta anaga mushkiladda ma haysa horta shabaab keliya ma aha runtii dhibka aada u muuqda waa sax xanuunku waa badan yahay laakiin nimankaani waxay ku asaasmeen horta in la ileeyo maaha waxay ku asaasmeen ayaga iyo buxadareedka iyo kulli waxa weeyaan waa dawla-aanta bay ku asaasmeen. marka horta halka waxaa qayb ka ahaan kara horta in dawladii asaaskeeda lagu dadaalo dhismaheeda lagu dadaalo oo wixii nimankaa fursada siiya lasoo afjaro oo meelay kasoo galeen ay soo xidmaan horta baa loo baahan yahay oo muuqaalkii dawladda iyo sistamkeedii iyo barnaamijkeedii oo maqnaanteeda waxa uu keenay horta waa in maanta lagu dadaalaa in waxaas maaragtay istaajiyo. Professor Afyar Cabdi Cilmi waxa uu leeyahay Al-Shabaab waa dallad ay ku wada jiraan kooxo kala aragti duwan oo ka wada tirsan ururkaasi wuxuuna aaminsan yahay in wada hadallo ay suurtagal yihiin isla markaana aan sidaasi looga quusanin ururka. way culimada aan la hadlay maxaan ku yiraahdaa waxay iyagu leeyihiin arrintu waa mabda'iyan sababtoo ah marka hore wada hadal intaan la gaarin Al-Shabaab horta gaalaysiinta waa inay ka laabataa waa inay dadka dilkooda iyo dhiigooda joojisa taasaa ka horeysay leeyihiin in horta ay aqbalaan inay la hadlaan. qodobadii la hordhigay shabaab ay ku doodeen 2009 way ka mid ahayd baa layidhi qodobkaa ka hadal. horta shabaab oo dhan haddii laysku qabto oo la yidhaahdo halkaas arrin ay aaminsan xoogaa waxaan u malaynayaa waa dad badan oo aan isku wada aragti ahayna laysku qaadaya. waa run ra'yigaas badane iyo qaar badan oo lamida waa qabeen. waxaa kaloo jira oo la ogaa markaas dad fara badan oo ayaga ku jira inaysan ra'yigaas la qabin. dadka dhan oo meesha wada joogaya wada qaba ra'yigaas aniga kolley dadka qaba ka mid maahay. waxaan isleeyahay waa jiraan dad qaba dad aan qabinna waa jiraan. marka waxaa muhima waxa waye qolada aan qabin in la empower gareeyo oo lala doodo oo lala hadlo oo kuwaasi ay yeeshaan. waa gartay laakiin aan kaa dhex galo haddii la yidhaha qayb lala hadli karo baa ku jirta taas macnaa waxa macnaheedu waxa weeye uun Al-Shabaab oo isku duuban lama rabo ama rajo lagama qabo in wada hadal lala galo iyagoo isku duuban ee hala kala jebiyo uun ama qaar uun ha laga soo gooyo. taasna horaan u soo aragnay oo dad madaxa way ka soo goosteen laakiin haddana ururkii dad kale un bay ku bedeleen xaaladdu wax badan isma bedelin. waa runta oo harta dadkii xataa mushkiladda jirta dhacday waxa waaye dadkii ka soo baxay oo Mrobow iyo ay kamid ahaayeen Zakariya iyo dad lamid ay kamid ahaayeen markay yimaadeen nidaamkan inta u yimaadeen horta niman oo waxay noqdeen qaarna waa xiran yihiin kuwana waxa waaye wax badan meesha kama joogaan. marka horta wax soo dhiirigeliya oo xataa kuwa raba inay kula
inay la hadlaan dadka dhiirigelin karaa horta oo dhinacii kale ka soo baxay ma jiraan marka runta loo hadlo. tan kale aakhirka waa markii mabda noocan oo kale uu yimaado oo lala dagaalo waa inaan horta taariikhda wax ka baranaa oo aan markaad u egto qaar weligood mara ku dhega oo extremista urur kastay kasoo baxaan kuwaasna inta badan ama waa la muquuniyaa ama waa laga bataa. marka waxaa la rabaa jawigii looga bada lahaa oo ra'yigooda loo discreditgaray lahaa suuqa looga saari lahaa ayaa laga rabaa qoladan dawladda iyo qolada kale oo xataa ayaga ku dhex jirtaa inay kasoo dhex baxdo. yacni waxaan xasuustaa berigaa godane khudbad uu ka jeediyey markaan niri hala hadlo khudbadiisa wuxuu kusoo qaatay articlekii aan qornay oo leeyahay waxaa la rabaa in la dhex galo oo saan la yeelo oo khudbada oo dheer oo cabaar dhan ka hadlayay. marka waxaad moodaa marka inuu u isticmaalayo hab propaganda uu leeyahay dad oo gaala ah iyo kuwa gaalada la jooga iyo wax noocaas oo kaleeta sameeya. marka waxaa la rabaa in si kale inta loogu dhigo la yidhaha waxaan gaala kama imaanayaane dadkii muslimka ahay oo soomaaliyeed dimaankoodii waaye iyo wixii ay rabeen. dowladda soomaaliya waxaan ku marti qaaday barnaamijkan, hase yeeshee wasiiro iyo mas-uuliyiin kala duwanba waxay diideen inay ka qayb galaan barnaamijka galka baarista. si kastaba ha ahaatee, sheekh Ibraahim Aadan Nadaara waxa uu qabaa inay wax tari karto in la ogaado mowqifka rasmiga ah ee dowladda ee ku wajahan wadahadallo lala gala ururka al-shabaab. balse dhinaca kale, sheekh Ibraahim Nadaara waxa uu aaminsan yahay inay adag tahay in la jilciyo fikirka qalafsan ee ururka al-shabaab. kaba soo qaad in la wada hadlo, shabaabku maxaan ku idhaahdaa sidoodaba ma ogol yihiin in wadahadal marka la galo loo ballan qaado ama kalsooni lagu siiyo ama damaanad qaad kale dastuurku inuu saldhig diinta islaamku inay u noqonayso, ciidamada amisom oo ciidamada shayna waddanka inay ka baxayaan, iyaguna inay maleeshiyadooda kusoo daraan maxaan ku ciidamada dawladda, jagooyin dawladda ay ka qaataan. ka waran qaab noocaas? iyaga hade waxay u qarsoon aniga ma garanayo, walow hade ficilkoodii iyo waxay ay sheegahayaan ay wax badan iskhilaafsan yihiin. dastuurka dawladduba ma aaminsana daba iyo dacalba in xataa kala saarin maxaa diinta waafaqsan maxaa diinta khilaafsan, midna magacaas aa dhib ku ahoo dhibaya. mida kaleeto waxay kaloo iyaguna haddana ay sheegaan in ciidamada shisheeye wadanka laga saaro, shareecada islaamkana lagu xukumo. waa inta sida publica ay u sheegaan mar walba, walow hadda shareecada islaamkuna aysan ogolayn wax badan ayago ay samaynayaan. oo waxay sheegahayaan iyo waxay samaynayaan ay habeen maalin ay kala tahay, farqi aad iyo aad uu u dhexeeyo. de horta in la wada hadlaa ka horeyso, qofku shuruud adag buu samaysan karaa. shuruudda adagna waxay ku jilci karta, ku fududaan kartaa marka horta la isugu yimaado wadahadalkii, labada dhinacba la wada ogolaado, aan kulano aan wada hadalno baa ka horeysa maxaynu ku wada hadalnaa. haddii in la kulmo la wada hadlada aysan jaaniskeeda furnayn, ma aha waxaa laga wada hadlayo hadda in la sheego oo qoladan intaasay wadan kartaa, qoladan intaasay wadan kartaa la dhaho. su-aasha hadda ugu weyn waxay tahay horta ma la wada hadli karaa? in la wada hadlo oo wada hadal meel la isugu yimaado, war dhibka wadanka ka jira sayna ooga wada hadalnaa oon u badbaadinaa. labada dhinacba midna hadda baabkaasi kama soo dhawaa, mana ka muuqdo. haddii xataa la heli lahaa, weliba in dhanka dawladda iyagu bilaabaan oo iyagu ay sameeyaan, oo xujooyinkan dadka iyagu shabaabku ay taabac ay u yihiin ay sameynayaan inay u daliishadaan, haddaynan iyagu mashruuc kala wadanin oo ummadan soomaaliyeed gumaadkeedii, baabi'inteedii, ummad kaleetiyo waxaan aanan garanaynin kale aynan gadaal ka taagnayn. haddii dhaalibaan sidaa u shaqaynayso oo maraykankii wadahadal kula jirto, oo kuwa suuriya jooga maalin habeen ay cadaynahayaan dawladii ay la leeyihiin bahasi la leeyihiin, idinku dad soomaaliyeed haddaad tihiin oo soomaali ka damqanaysaan sidaa sheeganaysaan in ayagoo xujooyinkaasi waxay daliishanayso iyadoo ay ka hadasho, way ficnaan lahayd ay ku dhiiradaan oo si ummaduna ay garab oogu noqoto. laakiin dad wax garab ah iyo dad dadkii gaaray, dadka unba baaqyada kasoo yeeraya, dadkii dhabta ah weli baaqooda lama. inkastoo ay wada hadallo u socdaan Taalibaan iyo Maraykanka, islamarkaana ay ku dhow yihiin inay heshiis rasmi ah kala saxeexdaan, haddana Taalibaan weli lama aysan hadlin dowladda Afghanistan. sidoo kale ma jirto waxyaabo damaanad qaadaya inay la hadli doonaan.
iyo in haddii ay wada hadlaan ay heshiis gaari karaan. Maraykankuse waxa uu doonayaa inuu helo weji uu kaga baxo dalka Afghanistan, isla markaana uu ku soo afjaro faragelintiisa waddankaasi oo socota sannadkii 19. dalka Soomaaliya markaan eegno, AMISOM ma haysato kharashaadka iyo tasiilaadka ay haysato dowladda Maraykanka. dhinaca kale waxaa la aaminsan yahay in Al-shabaab ay adeegsanayaan istiraatiijiyo ay ka heleen ururka Al-Qaacida oo ahayd inaysan ku dagaalamin magaalooyinka, balse ay ka baxaan isla markaana ku dagaalamaan jidadka isku xira magaalooyinka waaweyn. khubarada amniga iyo siyaasadda ee Soomaaliya waxay sidoo kale aaminsan yihiin in Al-shabaab ay doonayaan inay sugaan ka bixitaanka AMISOM ee waddanka, maadaama AMISOM sida dowladda Maraykanka aysan haysanin kharashaad iyo tasiilaad baaxad leh oo 10 sano ay ku maalgeliyaan howlgalkooda Soomaaliya.